بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدن يال يمروين دمان حبناها قولها قرنك الصوماليات ميل يواد جوكتان با وحان يدينكو السلام يا سلامتا إسلامكم وحان سيدو كلا هالكا همباليه يبوغادين يدينكو الصومالينا يا هوليه قيميغا شرفكم مدنا ay نسوق وانا يمدودي كورنايت وقولها ولسنا عمل الدياريني sida aynu la socono wuxuu goluhu soo maray maraaxil kala duwan oo u baahan inaynu iyadana wax ka xusno goluhu wuxuu ku soo bilowday aragtidii iyo himiladii ka dhalatay markii aanu aragnay in wadankii uu galay marxalado kala duwan oo xasaasi ah marxaladahaas oo sababay in dad fara badan oo Soomaaliyeed ay isu yimaadaan aragtiyo kala duwan qaba ururo kala duwan ka tirsan isla markaana joogo wadamo kala duwan oo caalamka ka tirsan iyo wadanka gudihiisa markii aanu ka qayb galnay shirar caalami ah oo fara badan oo looga hadlayo arrimaha Soomaaliya aanu aragnay xagal daacinta gacan bidxaynta iyo sida wadankeena ay ugu tashadeen mujtamaca iyo kala duwan iyo wadamo kala duwan dagnaanta dadkeenu ay u degan yihiin himilooyinka guracan ee ay leeyihiin dalalka shisheeye ee wadankeena danaha kale burburinta iyo qaybinta aayaha qarankeena wadajirka shacabkeena midnimada ummadeena iyo himiladii Soomaalinimo markii aanu aragnay kala fogaanshaha iyo kalsooni darrada shacabkeena markii aan aragnay isqabqabsiga iyo dhibaatada wadanka ka taagan markii aan aragnay dagaalada sukeeye ee muddada dheer socday isfahmi waaga iyo marxaladaha cusub ee wadanka galay waxaa noo muuqatay inaanu isu nimaadno aragtiyo isu kaano halkaasna aanu ka abuurno himilo dhaba oo ay ummadda Soomaaliyeed u aydo mustaqbalka dhow iyo kan dambe ee fogba mudanayaal iyo marwooyin xubnaha golaha muddada ka soo shaqeynayay isla markaasna qaybta ka ahaa dadaalada faraha badan aad baan idinku mahadcelinayaa waxaan jeclahay xubnaha cusub iyo kuwa dambe ee ku soo biiri doonaaba inay fahmaan wuxuu goluhu yahay wuxuu taagan yahay wuxuu doonayaa golaha qaranka Soomaaliyeed wuxuu ka dhashay ama ba aragtideeda lahaa golihii dhalinyarada Soomaaliyeed ee Somali Youth Congress oo la aasaasay ama ba lagu dhawaaqay 1993kii gobolka Shabeellaha Dhexe degmada Jowhar foundation-kiisa ama ba abuuristiisa iyo baahintiisa oo ay himiladiisa iyo aragtidiisa iyo shuruucdiisa iyo xiriiradiisuba aan muddo fog ka soo shaqeynayay isla markaasna aan anigu ka ahaa aasaasihii golahaas dhalinyarada Soomaaliyeed golahu wuxuu soo maray maraaxil kala duwan wuxuu soo maray marxalada xasaasi ah markii ay adkaatay ku shaqeynta wadanka gudihiisa markii ay adkaatay isu socodka wadanka gudihiisa markii ay adkaatay inaanu xilligaas dhaqan gelino waxyaabaha aanu ku fikirayni waxa yimi in ay nadibsadaan runtii dagaal oogayaashii wadanka xilliga ka jiray ka talinayay isla markaana meelo fara badan oo ay goboladii waqooyi bari la oran jiray oo maanta Puntland la baxay ay ka mid tahay oo xilligaas ay ka jirtay jabhadii SSDF gobolada waqooyi oo markaa iyagu maamulka Somaliland ku dhawaaqay gobolada koonfureed oo iyadana sidaas oo kale warlooreed kala duwan ay ka jireen ma aanay suurtagelin himiladii aanu ku taahaynay balse waxaanu mararka kala duwan ka helay taageero iyo cadaadisyo labadaba taageeradii ugu horeysay waxaanu ka helay qaramada midoobay oo xilliga ku sugnayd gobolka Shabeellaha Dhexe degmada Jowhar oo wakiilkeeda qaramada midoobay u joogay ee la oran jiray Axmed Keite oo waxa sidoo kale iyagana halka deganaa ciidamo kamid ahaa ciidamadii wadanka yimi la oran jiray IBIS ciidamadaas oo lahaa ujeedooyin kala duwan magac ahaanna magaca guud ku joogay UNISOM
oo aan runtii wax la taaban karo oo horumar aan waddankeena kusoo kordhin marka laga reebo kala qaybintii iyo tafaraaruqii waddanka oo fogaaday iyo danihii ay lahaayeen oo ay iyagu ku fikirayeen in waddanka la kala qaybiyo oo dowlad walbaaba ay gobol qabsato sida ka muuqatay gobolka Shabeellaha Dhexe oo ay ibis joogtay gobolka Jubbada Hoose oo ay joogeen Belgiumka beledweyne oo sidoo kale ay joogeen Belgiumka iyo Canada ay joogtay waxaa muuqanayay in maaragtay ay dhacaan dhibaatooyin fara badan tacadiyo fal xumooyin kala duwan oo ay maaragtay ummadda Soomaaliyeed xilliga kala kulantay dhinacyada kalena waxaa muuqanayay dadaalo fara badan oo wax ku ool ah dhinaca caafimaadka daryeelka bulshada oo iyadana ay wax ka qabatay labada dhinac marka lama oran karo oo lama wada eedeyn karo lama oran karo negative bay wada ahayd positive bay wada ahaydna lama oran karo laakiin dan walbaaba wuxuu leeyahay ujeedo gaar ah oo isagu u cad halka uu maaragtay marinayo xilligaa kadib goluhu dhalinyarada Soomaaliyeed wuxuu isku dayay inuu isku baahiyo gobolada iyo degmooyinka caqabado fara badan ma aanay suurtagelin dadkii xilliyadaas aanu gaarsiinay amaba hawsha qaybta ka ahaa oo aad u fara badnaa ayaa runtii muujiyay dadaalo fara badan markii ugu dambeysay goluhu dhalinyarada Soomaaliyeed ama Somali Youth Congress ay u muuqatay inaanu wax kala qaban karin waxaanu arrimaheena ku soo duunay inaanu wacyiga bulshada ka shaqeyno isla markaasna kaydino dhacdooyinka taariikhiga ah ee dalkeena ka dhacaya sida jaraa'idada waddanka ka soo baxaya wargeysyada kaleeto ee caalamka ee arrimaha Soomaaliya lagaga hadlayo idaacadaha ka hadlaya arrimaha Soomaaliya dagaalada dhacaya iyo waxyaabaha la midka ah oo xilliyadaas waddankeena ka socday markii aanu muddo sidaa ku shaqeynaynay waxaan xarunteena ugu horeysay ka furnay magaalada Djibouti ee dalka Djibouti oo ay suurtagal noogu noqotay in oil mobilka Ali Haybe ee Djibouti aan buildingkiisa ka furano xafiiskeena ugu horeeyay halkaas oo aan ku kaydinay muddo maaragtay aad u fog ilaa iyo 95kii wixii wargeysyo iyo xogo waddankeena aan islahayn mustaqbalka dambe ayuu wax tari doonaa hay'ad aan ugu magac darnay diiwaan oo runtii muddo dheer soo shaqeynaysay inkastoo aanay publicly weli maaragtay bandhig ballaaran samaynin haddana diiwaankii maaragtay kaydka oo kale lahaa wajiyo kala duwan oo aan ugu maaragtay talagalnay mustaqbalka diiwaan archive oo ah kaydka diiwaan aan ugu talagalnay in maaragtay arrimaha taariikhiga iyo waxyaabahaas waxaa jira diiwaan criminal archive oo dambiyadii dhacayay iyo kaydkoodii iyagana sidoo kaleeto iyo diiwaan news agency DNA oo isagana aan ugu talagalnay in mustaqbalka dhow aanu ku hawlgelino si ay u noqoto kaaba dhaqaale oo himiladaas ay dhalinyaradu leeyihiin fuliya waxaan sidoo kaleeto udub dhexaad ka dhiganay oo aanu ku mashquulnay si ururku uu noqdo urur dhaxaltooyo oo ay dhalinta ka dambeysa u gudbiso isla markaana ay ku barato hoggaanka hanaanka haybadda qarannimada midnimada wadajirka iyo sidii loo dhaqangelin lahaa sinaan iyo cadaalad maadaama ay luntay sinaantii iyo cadaaladii dadkeena maadaama ay luntay qorshayaashii aanu maaragtay oo qarankeenu lahaa annana aanu u fikiraynay inaanu maaragtay meel marino markii muddo aanu shaqeynaynay ayaa waxaa noo muuqatay inaan laga maarmin in la sameeyo abaabul iyo isbahaysiyo lala sameynayo ururada bulshada sidaas ayaan waxaanu kaga qayb galnay shir magaalada Muqdisho lagu qabtay 2000 markii ay soo dhaweyd in Djibouti ay ku dhawaaqi lahayd amaba Djibouti ay ku dhawaaqi doontay markaa kadib inay shir qaban doonto Soomaaliya shirkaas waxaa lagu qabtay Naasa Hablood waxaa ka qayb galay 12 urur oo ay isu keeneen urur la oran jiray pressure group oo aan ka xasuusto professor Tuurier in la oran jiray inuu markaa hoggaanka u hayay ururkaasu ururada isu yimi waxay la baxeen xoogagga nabadda iyo midnimada doonka Soomaaliyeed SABUF oo ahaa Somali Association and Unification Somali Association Somali Union wuxuu ahaa SABUF waa SABUF waa Somali Association of Peace and Unification marka
oo ujeedadiisu ahaa sidii urura maaragtay la isugu keeni lahaa ururada kala duwan. Halkaa waxaa ku midoobay 12 urur oo muddo ku shirayay hotelkii Naasa Hablood. markii dambana hotel Saxafi ay bandhigiisii lagu soo bandhigay. waxaa ururka loo doortay Cabdicasiis Mukhtaar Macallin Cabdicasiis Qiridi oo runtii markii dambe ka qayb maaragtay uga qayb galay ururka shirkii Carta dalka Djibouti. halkaas oo markii dambe loogu doortay dowladii halkaa ka soo baxday uu madaxweynaha ka noqday Cabdulqaasim Salaad Xasan inuu noqdo wasiirka shaqada iyo sportska. intaa kadib taageeradii iyo aragtidii noogu muuqatay in halkaasi ay dowlad ama hanaan dowladeed oo Soomaalinimo ay ka dhalato, isla markaana laga baxo warlorisiimka iyo kala qaybsanaantii wadanka ka jirtay. golahu wuxuu isku dayay inuu mar kaleeto isku dayo inuu maaragtay gaaro goboladii kaleeto, halkaasoo aan gobolada waqooyi bari ee xilligaas maamul goboleedka Puntland uu ka jiray gaarsiin aan maaragtay isku ballaarin isku daynay. waxaa kusoo aaday xilligii doorashooyinkii Puntland oo halkaas kacdoon shacab uu ka dhacay, isla markaana aanu qayb ka noqonay inaanu maaragtay weliba anigu aan u hogaamiyo, isla markaana aan noqono xiriirintii bulshada iyo isimadii gobolada waqooyi bari. taasina markii dambe ay dhalisay in ay kacdoonkii shacabku ka gacan sareeyaan maamulkii doonayay inuu xilka isku ballaariyo ee Cabdullaahi Yuusuf uu horkaciyay. kadibna aanu halkaas maaragtay kaga qayb qaadanay shirweynihii labaad ee dowlad goboleedka ama maamul goboleedka Puntland oo ay dadweynuhu qabsanayeen, annaguna aanu markhaati ka ahayn. khilaafaad iyo dagaalo kadib waxaa dhacday inaanu isku dayno bal marka inaanu bal sii ballaarino ururkii. nasiib darro sidii aan u fikiraynay iyo isbaahintii ma aanay suuragelin. waxaa dhacay in markaa aanu isku dayno bal inaanu bal dhinaca qurbaha iyo dibadda iyo meelo kaleeto aanu maaragtay ka samayno. himiladii fogeyd ee aanu xilligaa ku fikiraynay sidii aan u fikiraynay marnaba ma aanay suuragelin. halganna sidiisaba uma dhaqan galo sida loo filayo inta badan. taasi waxay kaliftay in ururkii in muddo uu noqdo howlgab. markii dambe inaanu UK aanu saldhig uga dhignay sanadii 2001. kadibna aanu halkaas muddo kooban ka howlgalno oo aanu qaab bulsheed ugu shaqeyno bartamaha magaalada London, anagoo oo wax ka caawinayna dhalinyarada guryo doonka ah, dhalinyarada tacliinta ay baranaysa, dhalinyarada ku cusub wadanka, maadaama xaaladii amni ee wadankeenu ay adkaatay, xasaasiyadihii wadanku uu dhibatay, amnigii shakhsiyaadkii ka shaqeynaya arrimahana ay noqdeen kuwa meelaha qaybtoo target ka ah oo la target garaysan karin amaba bartilmaameed noqday. sidaas daraadeed in muddo markii aanu ururka ugu shaqeynaynay urur bulshada gaar ahaan dhalinyarada wax ka tara programo badan qabta, ayaa waxaa dhacay in ay dhashaan maxkamadihii midoobay oo ay iskaashanayeen. kadibna halkaas ay ka dhalatay in ay wadanka ay soo gasho Ethiopia, khilaafna uu halkaa ka dhasho. golahu wuxuu u istaagay markaa qaabkii uu dareenkiisa u tacbiri lahaa, isla markaana iskaashi caalami ah iyo mid goboleedba ula sameyn lahaa ururada xuquuqaha insaanka u dooda, sidii loo daryeeli lahaa dadkaas barakacay ee dagaalada ku barakacay, sidii wax looga qaban lahaa xaaladaha siyaasadeed, isla markaana aanu kaalin siyaasadeed oo aan hubaysnayn inaan uga qaadano sidii wadanka looga saari lahaa duulaankii Ethiopia ay kusoo dooshay. dadaalo fara badan waxaanu ka qayb qaadanay shirar kala duwan oo ka kala dhacay wadamo kala duwan oo Yurub iyo kamid ah, oo ugu weynaa shirkii Leicester ka dhacay ee ay maaragtay isugu yimaadeen qurbo joogta Soomaaliyeed xubno ka tirsanaa maxkamadihii midoobay. sidaa daraadeedna aanu halkaa ku dhisnay urur la oran jiray ururka qurbo joogta Soomaaliyeed ama Somali Diaspora. run ahaantii waxaanu ahayn kaabe aan si dhaba xubin uga ahayn, laakiin kaabayay si loo gaaro himiladii dhabta ahayd ee aanu ka aragnay maxkamadii islaamiga ahaa iyo midnimadii yarta ahayd, amnigii iyo ifafaalihii halkaa noogu muuqday inuu soo noqdo. arrintaa kadib waxaa dhacday in
la go-aamiyo in la isugu tago shir ay qurbo joogta maxkamadaha islaamiga ah ee Soomaaliyeed xubno ka tirsanaa baarlamaankii aqoonyahan Soomaaliyeed iyo dhammaan qaybaha bulshada aanu isugu tagno magaalada Asmara ee dalkaas Eritrea halkaasoo sidoo kale lagu dhisay isbahaysigii dib u xoreynta isbahaysigaasoo runtii aanan haddana xubno ka noqon maadaama anigu aan weliba u matalayay golaha dhalinyarada Soomaaliyeed sababtiisuna ay ahayd inaanu annaga oo aan golaha dhalinyarada oo aan aniga iyo u matalayay dhalinyaro kaleeto iyo dad aan isku afkaar noqonay oo uu kamid ahaa Allah u naxariisto uu kamid ahaa ninkii la oran jiray Professor Umar oo dhawaan geeriyooday Allah yarxamo in aan isbahaysi ama urur laga dhigin maadaama ay marxaladii markaa dawladii meesha ka jirtayna ay aad u wiiqmaysay dawladda Ethiopia ay ku adkayd inay wadanka sii joogto inay noo muuqato inay ka baxay sidaa daraadeed inaan loo baahnayn in isbahaysi la dhisay waxaan talo ku soo jeedinay in dawlad la dhiso si markii ay tani meesha uga baxdo ay u bedesho nasiib daradii dhacday waxay noqotay in arrintaas ay u muuqato wax maaragtay aan sidii aan u fikreynay aan loo qaadan taasina ay sabab u noqoto inaan anagu ka galo ahaan ama xubnihii matalayay aan xubno ka noqonin isbahaysigii dib u xoreynta balse aan wixii siyaasad hiil iyo hoog siyaasadeed ku saabsan inaanu garab istaagno maadaama anagu aanan ahayn urur hubeysan oo dhaqdhaqaaq hubeysan si toos ah marna uga qayb qaadan karin arrimahaas oo dhan markii ay dhacayeen waxaa iyana garab socday dhibaatooyin dhinaca bini'aadanimada ah oo ay ciidamada Ethiopia iyo ciidamada Soomaaliyeed ay ka geysanayeen wadanka gudihiisa dhibaatadaas oo runtii ahayd dhibaato aad u xanuun badan iyadoo ay taasi jirta ayaa misna wadanka waxaa kusoo kordhay ciidamada Uganda oo qayb ka noqday dagaalkii ka dhacay magaalada Muqdisho isla markaasna ka qayb qaatay genocide-kii ka dhacay magaalada Muqdisho ee lagu xasuuqay ama lagu dhibaateeyay dadweynihii Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho arrimahaas xanuunka faraha badan leh waxay kalifeen in dadka Soomaaliyeed ay ka gilgishaan gacmaha iska qabsadaan isla markaana ay ilaa iyo xad ka dagaalamaan taasoo soo dedejisay Ethiopia inay ku nagaan weyso magaalada Muqdisho loona baahdo in la galo reconciliation dhaba oo ay maaragtay halkaasna sidoo kale uu isku casilay madaxweynihii markaa xilka hayay Cabdullaahi Yuusuf Axmed iscaslaadaas iyo tafraaruqaas oo aanu anagu ifafaale ka bixinaynay haddii xilligii maaragtay isbahaysiga la dhisayay dawlad la dhisi lahaa noqon lahaa dawlad loo baahan yahay oo bedesha dawladdaasi burburaysa nasiib darro ma aanay dhicin arrintaas waxay dhabarjab ku noqotay isbahaysigii oo ay qayb isbahaysigii ka mid ah ay si nafla caarinimo ah ay ugu cararaan Nairobi iyo meelo kala duwan arrintaasoo dhalisay in isbahaysigu uu kala qaybsamo ay isqabsado khilaafna uu ka dhasho arrintaas marka waxaan isku daynay inaanu dib u heshiisiin iyo nabad waarta aanu ka aslaaxino nasiib darro dadaalo fara badan oo aan isku daynay ma aanay suurtagelin sidii aan u fikreynay kama aanan quusanin waxaanu isku daynay inaanu si walba u marno isla markaasna aan qayb ka noqono heshiisiin iyo kulamo fara badan oo aan isku daynay oo dhacay runtiina aan guuleysanin oo ay ka mid ahaayeen shirar fara badan oo qaybtood uu ugu weynaa shirkiisana lagu qabtay si mar kale shir kale loo abaabulo ayaan mar kaleeto misana magaalada Asmara ee Eritrea ku noqonay nasiib darro ma aanay dhicin sidii aan u fikreynay inay wax u dhacaan oo ay maaragtay arrintaas sidaa u dhaqan gasho Djibouti waxaa ka dhismay dawlad markaa uu hogaaminayo hogaamiyihii isbahaysiga horena uu ahaa hogaamiyihii maxkamadaha islaamiga ahaa ninkii la oran jiray Shariif Sheekh Axmed oo markaa isagu Muqdisho ku noqday ayna kaliftay dadkii shalay ay isku aragtida ahaayeen ay meesha wada socdeen inay iska hor yimaadaan dagaal ballaaran oo khasaare geystaana uu halkaa ka dhaco kaasoo ahaa mid aanu anagu markii hore ka digaynay isla markaasna ay dhacdo inaanu si cad siyaasiyiin uga hor nimaadno kaalinta aanu annaga ka urur dhalinyaro ahayn aanu ku lahayn ay ahayd dhinaca siyaasadda wixii markaa lasoo dhisayay oo u muuqday wixii maaragtay invasionkii hore ee Ethiopia iyo wadamada la midka ah u gogol xaarayay inay wadankeena ay maaragtay ka tuuraan bohol aan runtii laga soo celin karin taasoo ay
kamid ahayd in wadanku uu noqdo wadan dadkiisu iyo midnimadiisii lumiya, wadajirkiisii lumiya, khasaare ballaaranna uu halkaa ka dhasho, taasoo dhab ahaan sidii aan u sheegaynay u dhacday. ugu dambeyn waxaa dhacay in markaa heshiisyo markaa laftigooda aan isku daynay inaanu sameyno 2008, 2009, 2010 oo aan isku daynay bal haddana inaanu bal at least meel la isugu keeno kooxaa iskaga soo horjeeday iyadana aanay dhaqan gelin. intaa kadib waxaa bilowday wax loogu yeeray roadmap oo ahayd gacan bidxayn ballaaran ee la doonayay wadanka in lagu goobeeyo, lagu qaybiyo, midnimadii ummadda Soomaaliyeed lagu dhaawaco, wadajirkii bulshadeennana ay halkaasi uga yimaado dhibaateyn iyo kala tafraaq, iyadoo ay hore u jirtay dhibaatooyin fara badan oo wadankeena ka dhacay kaasoo lumiyay kalsoonidii ay dadka Soomaaliyeed isku qabeen. arrimahaas oo dhani waxa ay noqdeen kuwa sii kordhiya kala shakiga, cuqdada iyo midabta koorka qabliyadeed iyo xuduudaha qabyaaladeed ee ka dhaqangelayay gobolada iyo degmooyinkeena. waxaa sare usii kacay oo uu maamulkii markii la magacaabay Shariif Sheekh Axmed uu soo kordhiyey in wadanku uu aada usii kala qaybsamo, in xaafadihii iyo degmooyinkii ay maryo soo tushaan, calamo ay samaystaan, wadankii kala qaybsanaantiisii ay aada usii kororto, isla markaana la sameeyo wax loogu magac daray roadmap oo aanu sidoo kale mar kale ka hornimay in la qoray wax loogu yeeray qabyo qoraal oo ahaa draft constitution ama dastuur lasoo qoray oo aanu isagana runtii si cad uga hornimin. nasiib daradii dhacday si aanu ku guuleysan weynin. ayaan daradii ugu yaabka badnayd waxay ahayd markii shir lagu qabtay magaalada London oo aanu ka qayb galnay aniga iyo xubno kaleeto oo kala duwan oo uu kamid ahaa saaxiibkay Ducale Ciise Yuusuf, isla markaasna lagu doonayay in lagu sameeyo wax la yiraahdo Bavilson oo lagu difaacay Ethiopia iyo Kenya, isla markaasna dhaawacaya wadajirkii iyo midnimadii ummadda Soomaaliyeed, kalsoonidii shacabkeenu isku qabay. markii aanu aragnay ifafaalihii halkaa ka socday oo ay dowladihii kala duwanaa ay halkaa isugu yimi, dowladda Mareykanka, dowladda Ingiriiska, dowladda Ethiopia, Kenya, Uganda, wadamo kaleeto oo sidaas oo kale iyo ururo ay kamid yihiin African Union, xubno ka socday, Mark Bowden oo United Nations ka socday, dowladda Soomaaliya oo uu ka socday Cabdiraxmaan Yarisow oo iyo Omar oo isagoo xubin baarlamaan ahaa, saraakiil Soomaaliyeed oo kaleeto oo kamid ahaa General Falcon. arrintaasu waxay dhalisay dood aada u kulul inay nagu dhex marto annaga iyo xubnihii international community-ga ka socday, aanuna halkaas isku maandhaafno. arrintaas waxay ku gabagabowday isfahmi waa kadibna Ethiopia isku dayeysay inaanu ka qayb qaadano shir Addis Ababa ka dhacayay oo ay Ahlu Sunna dowladii xilligaa jirtay, dowlad goboleedka Puntland iyo dowlad goboleedka Galmudug ay ka qayb galayeen Ahlu Sunna wal Jamaaca, ayaa la isku dayay inaanu kaga qayb galno magaalada Addis Ababa oo aanu si cad uga hornimiyo iyadana aanu diidnay. deetana waxaa dhacday in halkaas laga sii wado qorshayaashii la doonayay iyo Kampala Accord iyo waxyaabihii la midka ahaa. halkaas waxaa markaa ka dhashay inaan isku dayo inaan isugu yeero waxgarad Soomaaliyeed oo kala duwan, u sheego wixii ka dhacay halkaa iyo shirkii iyo wixii uu ku saabsanaa. shirkaas oo ka dhacay magaalada London, Edmund Bush, isla markaana aanu ku casuunay wakiilkii Mareykanka shirka ka qayb galayay si markaas ay u cadeyso wixii shirka lagaga hadlayay, balse markaas witness ay ugu noqdaan dadkii aan isugu yeeray ee cuqaasha ahaa, ee waxgaradka ahaa, ee meelaha kala duwan aan isugu kasoo casumay ee UK. kadibna waxaa dhacday shirkaas inaan wixii bixintii aan siiyey ay gabadhii arrimahaas Mareykanka u matalaysay shirkaas ku matalaysay ay u sheegto dadkii sidii ay wax u dhaceen, dadkiina halkaas ay runtii dareemaan in halkaas wax kasoo socdaan, isla markaasna ay garteen inaanu abaabul u galno, leadershipkiisana aanu anagu qaadano oo aanu maadaama aan soo bandhigay umuurtaas ka gola ahaan inaan hawsha halkeedii ka wado. nasiib daradii dhacday waxay ahayd khilaaf ka yimi xubno ka tirsanaa xubnohii meesha fadhiyey oo sabab u noqday in himiladaasu inay meel marto ay burburto, inay carqalado iyo
horistaag fara badan ay ka yimaado. horistaagaasoo markii dambe dhaliyay in loo wajaho aragtidii iyo hawshii aan wadnay ay wadamo kaleeto ay maaragtay yiraahdaan halkaas shir lagu qabanayaa ama meelo kaleeto, taasoo marka dhalisay hawshii aan halka ka wadnay in maaragtay meelo kale loo wajahay ama si kaleeto uga yimi dad kaleeto oo Soomaaliyeed oo xilkas ah ama ha noqoto coordination dadkii carqalada waday ay abaabuleen in halkaas ay hawsha ka dhalato, ama ha noqoto wax iyagu ay garteen ba in markaa Sweden shir lagu qabto isla markaana halkaa laga amba qaado hawsha halka aan ka waday. taasi waxay dhalisay haddana ka qaybgalkeedii in isfahmi waa iyo aan u aragnay inay dee iska tahay caqabadihii Soomaalida inuu meeshii ka dhashay. haddana muddo dheer kadib waxaan ku guuleysanay bal inaan isku dayo inaan dib boorka uga jafno aan soo taagno gole ummadda u shaqeeya. inkastoo isku dayadaas yaani suurtagelin shirkii Sweden aanan ka qayb gelin oo ay dhacday in hay'adaha amniga waddankan ay maaragtay wada hadal iyo waraysi iyo waxyaabo noocaas oo aan u arkay kulli iska shirqool lagaga reebay shirka inuu halkaa ka dhacay. taasina ay suurtagelisay inaan ka qayb gelin shirkii Sweden aan ka qayb gali lahaa. arrimahaas faraha badan oo aan meelo fara badan hore uga hadalay oo aan hore uga aragteen groupka iyo meelo kala duwan discussion fara badan aynu hore uga sameynay waxa dhacay inaan muddo dheer kadib misna aan isku dayno inaan wixii Sweden lagu soo sameeyay golahii midnimada la oran jiray ama la yiraahdo aan bal isku dayo inaan member ka noqdo xubnihii ka haray markaa iyagana ay maaragtay ka qayb galaan. nasiib darro isku dayadii dambena ma aanay suurtagelin. taasi marka waxay soo dedejisay inaanu golihii dhalinyarada, golihii haweenka, golihii ardayda iyo xubnihii kaleeto oo bulshada rayidka ah aanu isku dayno inaanu markaa samayno golahan oo aynu boorka ka jafno himiladii 2001 aynu soo jeedinay oo qorshaheeda iyo himiladeeda iyo aragtideeda bal dhalinyaradu ay lahayd. isla markaasna aan ugu magac darnay Somali National Council, golaha qaranka Soomaaliyeed oo ah dawladda Hasuun ama shadow government. himiladeeduna tahay sidii markaa waddanka loogu sameyn lahaa hanaan waara oo fariisiya himilooyinka kala duwan ee waddankeenu leeyahay. muxuu yahay marka waxa aan weegsanayno aan doonayno inaan balqaxno? waxaan doonaynaa oo aan gol ahaan u dhisnay golahani maaha golo siyaasadeed oo xubnihiisu ay doonayaan inay waddanka xilka qabtaan. aniga ayaa ugu horeeya. ma doonayo inaan madaxweyne waddankii ka noqdo, inaan ra'iisul wasaare ka noqdo, inaan wasiir ka noqdo, inaan xubin baarlamaan ka noqdo, inaan shaqaale dawladeed ka noqdo intaba. balse waxaan doonayaa ama xubnaha golaha aan ku midaysanahay aan doonaynaa inaanan anagu xil doon aan ahayn inaanu xigmadii waddankeena lagu fariisin lahaa aanu salka u dhigno. inaanu arrimaha sidee lagu heli karaa ciidan qaran oo Soomaaliyeed falsafadiisa iyo himiladiisa inaanu meel marino, sidee lagu heli karaa waddankan inuu horumaro oo horumarkiisa iyo dibadhiskiisa laga shaqeeyo inaanu fariisino meel marino, inaanu hore u qaadno sidii tacliinta loo horumarin lahaa ee manaahiijtan kala duwan loo maaragtay sidii loo horumarin lahaa dalag iyo wax soo saar oo loo horumarin lahaa beeraleyda Soomaaliyeed, isla markaasna dheelitir loo sameyn lahaa dalagga waddankeena. waxaasoo dhani waxa ay u baahan yihiin falsafad, himilo iyo hanaan qorshaysan oo aan nooga dhex muuqan dadka Soomaaliyeed. waxaa kaloo iyana garab socda dib u dhiska iyo horumarinta mashaariicda oo aanu ugu maaragtay talagalnay inay fuliso hay'ad aan ugu magac darnay Somali Rebuilding and Development Programs, dib u dhiska iyo horumarinta mashaariicda. dhinaca wacyiga iyo baraarujinta oo aan ugu talagalnay golaha Soomaalinimo oo ah golo kicin iyo abaabul oo qayb ka noqon doona wacyiga bulshada Soomaaliyeed. haddii ay noqon lahayd dhaqan iyo suugaan, haddii ay noqon lahayd fariin gudbin, haddii ay noqon lahayd
baraarujin guud. himilooyinkaas faraha badan ee aanu higsanaynaa inaba kuma salaysna sidaan hore usoo sheegnay inaanu xil ku qabano, inaanu xil ku doonayno, laakiin waxaanu doonaynaa annagoo garab istaagayna maamulada dowladda dhexe iyo maamulada gobolada iyo degmooyinka ka jira, wacyi gelinayna, sare u qaadayna aqoontooda, tala siinayna, waxa ay ku khaldan yihiinna aanu kala hadlayno, isla markaasna aanu buuxino kaalimaha aanay dowladda dhexe iyo maamulada geli karin. For example, in ciidamada ama tusaale ahaan in ciidamada wadanka ku jira iyo tayadooda maxaa la yiraahdaa ciidamada shisheeye in qalabkooda iyo tayada ciidanba lagu wareejiyo ciidamada qalabka sida si halkaas uga soo baxo ciidan qalab sida oo Soomaaliyeed oo dhisan, sidii loo dhiirigelin lahaa ciidamada amniga. waxyaabaha xagil daacinta ah ee arrimaha siyaasadeed ee ay shisheeyo wadanka ka wadaan, sidii loo wajihi lahaa ciidamada badda ku sugan ee shisheeyaha ah, sidii isu imaanshaha dadkeena looga shaqeyn lahaa, oo ay in haddii khilaafaad sida hadda jirta oo kaleeto dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada aanan mar walba ugu baahanin inaan shisheeye u tagno oo dadka iyagu shisheeye isu dhex maro. marka gole qaran ama shadow government, dowladda hasoon oo xiriirisa bulshada qaybihiisii kala duwanaa, isla markaasna ay xubno ka yihiin maamulada gobolada, maamulada maaragtay degmooyinka, oo aan ahayn maamulada tooska ah, laakiin aanu samayno maamulo kuwa u dhigma oo challenges la gala dhinaca horumarka, laakiin micnahoodu aan ahayn inay iyagu xil qabtaan, marnaba xil ma qaban doonaan loo kale ah, si ay usoo noqoto kalsooni loona helo dad Soomaaliyeed oo aan xil doonaynin, oo aan kursi ku haysanin qofka gobolka jooga, qofka degmada jooga, qofka caasimada jooga, wasiirka iyo hay'adaha kaleeto ee dowliga ah, balse ka shaqeynaya dana qaran oo wadanku leeyahay. waana wixii ugu horreeyay sida aan qiyaasayo oo ama caalamka ha noqoto ama gobolka ha noqoto ama dalkeenaba ha noqotee maaragtay falsafad noocaas oo kaleeta ah ay ka dhaqan galaan. himilada noocaasa waxay u baahan tahay iskaashi, wadajir iyo taageero dhaba oo ay dadka Soomaaliyeed ay siiyaan iyo xubnahaba. maaha in xubnaheena iyo qaybaha kala duwan golaha uun wax ku koobane, waa wax muwaadin walba iyo muwaadinad walba oo Soomaaliyeed looga baahan yahay. waxaa kaloo iyadana hoos imanaya arrimaha nabadda iyo dib u heshiisiinta, gaar ahaan dagaalada hadda ka socda wadankeena oo ay isku hayaan xarakada shabaab mujaahidiin iyo dowladda oo kaashanaysa ciidamo shisheeye. dagaalada ka dhex dhacaya bulshada Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan oo u baahan iyagana in la xaliyo, xal waarana laga gaaro. arrimahaas oo dhan haddii aan loo helin hanaan iyo himilo waarta oo dhaqan gelisa, ilaalisa, ka taxadirta, waxaa muuqanaya in khilaafka wadankeena ku baahi doonaa aanu helin cid hor istaagta. waxaan jeclahay mudanayaal, marwooyin, aad baan ugu faraxsanahay inaan caawa iyo maantaba waqtigaas dheer aan wada qaadano. waxaan jeclahay wixii gaarka golaha u ahaa inaanu gaar uga hadalnay, intan aan ugu talagalnay wacyiga guud iyo bulshadeenana inaan la qaybsano ummadana dhageysanaysa. dabcan waa khudbadii jimcaha ee ugu horreysay ee si publiga aan dadka ugu soo bandhigno, inagoo isla sheer gareyn jirnay golaha dhexdiisa keliya. waxay farxad weyn iigu tahay in bal at least dadku ay dareemaan hadda kadib inay nala wadaagi doonaan khudbooyinkeena jimcaha toddobaadlaha ah ee jimco walba aan kusoo qaadano maraaxiisha kala duwan oo aan markii hore golaha kaliya ugu talagalnay, balse aan markan tii golaha iyo tii bulshadaba aanu soo bandhignay ama aan soo bandhigi doono. waxaan rajaynayaa inaan horumar lagu gaari karin kala qoqobnaansho, kala tag, tafaraaro iyo midnimo darri inaanay meelnayna geyn karin. waxaan rajaynayaa oo aan codsanayaa oo aan aad dadkayga Soomaaliyeed uga codsanayaa inaynu gacmaha isqabsano, kalsoonideennii soo celino, midnimadeennii iyo wadajirkeennii iyo wadadhalashadeennii soo celino, aan abuurno hanaankii dhabta ahaa ee looga bixi lahaa dhibaatada maanta jirta. taasina waxay ku iman kartaa qof walba oo aynu isleenahay dhibka maanta jira ayuu qayb ka yahay, inaynu iscafino, gacmahana isu qabsano. sababtu waxay tahay haddaynan qof walba oo uu dhib soo gaaray ama qof walba oo dhibka ka qayb qaatay
aanan la cafin in dhibaatadu sii badato. waxaan xus usoo qaadanaynaa in dagaalo aada fara badan ay waddankeena ka dhaceen, dadkeena uu muddo badan isu soo cafinayay. qaybaha tusaalooyinka muhiimka u baahan waxaa kamid ah in goboladii waqooyi bari ay dagaalo ku dhex mareen ururka al-Itixaad iyo ururka SSDF oo ugu dambeyntii dadku ku heshiiyey dadkii xilliyada ku dagaalameen maanta ay yihiin dad wada dhaqmaya oo gacmaha is haysta. sidaas oo kaleeto in gobolada Geda ay dagaalo sidaas oo kale ka dhaceen. caalamka dhinaciisa markaynu usoo qaadano South Africa oo kaleeto wixii ka dhacay iyo Nelson Mandela halkii uu mariyey iyo sidii maaragtay ay dadkaas iyagoo kala midab ah kala aragti ah ay wada maaragtay nool yihiin. waxa Sierra Leone ka dhacay in maaragtay dadkaasi sidaas oo kaleeto wixii ka dhex dhacay Tutsiga iyo Hutuga waxyaabahaas oo dhan waa tusaale. dalka Britain oo maaragtay isagana sidaas oo kaleeto wixii ka dhacay Northern Ireland iyo UK ba oo ay isu geysanayeen IRA iyo ciidamada dalkan UK. haddaba waxaasoo dhani iscafintoodii waxaa lagu gaaray nabad iyo baraare. dad aan dalkiisu go-aan nabadeed qaadanina horumar ma gaarayo, amnina ma heli doono. waxaan rajeynayaa inaynu ka shaqeyno wadajirka, waxaan rajeynayaa inaynu ka shaqeyno sidaynu amnigeena iyo isaga kaashan lahayn. waxaan ugu dambeyn hambalyo usoo jeedinayaa dhinaca farsamada oo suurta geliyay runtii in maanta iyo caawaba uu programkan isku soo dibridaan. aad bay ugu mahadsan yihiin Siraad Miicaad iyo Maxamed Cabdiqaadir, labadaba aad baan u mahad celinayaa. weliba Siraad waqtigii dheeraa ee aad maanta hawshan ku jirtay ilaa caawa aad baan kugu hambalyeynayaa. waxaan jeclahay inaan ummadda Soomaaliyeed meel iyo waa ay joogtaba sidoo kaleeto u hambalyeeyo. jimcaha xiga hadduu ilaahay raalli ka noqdo dabcan waxaa la geli doonaa Ramadaan. waxaan ilaahay idinka rajeynayaa inuu dhammaantiin cibaadadiina idinka aqbalo, inuu rajadiina idin yeelo, inaad idina ka faa'iidaysataan bishaas barakaysan meel aad joogtaanba, in dagaalada dalkeena ka jira ilaahay idinkiisa ay istaagaan, dadka Soomaaliyeed uu garto wada hadal iyo wada fariisi. waxaan idin leeyahay dhammaantiinba kulanti wacan wanaagsan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kulanka inoo xiga iyo jimcaha dambe hadduu ilaahay raalli ka noqdo waxaan idinkaga tegayaa ammaanada ilaahay iyo xaggayga. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.